bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka wararka soomaalida. qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda kenya ayaa xabsiga dhigtay mid ka mid ah milkiilayaasha xawaaladaha ku yaala dalka kenya iyadoo ka eedeysay in lacago aada u fara badan oo usoo diray soomaaliya. sidoo kale inta wararka ay socdaan daawadayaal waxaad ku maqli doontaan dowladda kenya ayaa sidoo kale waxay dowladda soomaaliya ku cadaadineysaa inay ka laabato muranka badda iyo dacwadda ku aadan ama ay u gudbisay maxkamadda dambiyada adduunka ee ICJ. sidoo kale waxaad maqli doontaan wiil hooyadii ku dilay dowlad deegaanka soomaalida ee Ethiopia ayaad maqli doontaan. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa. markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo fidsan. iyadoo madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya heshiis xal looga gaaray khilaafka labada dal muddada hareeyay ay ku wada gaareen magaalada Nairobi ayaa haddana waxa Kenya bilowday inay bartilmaameedsato Soomaalida ku dhaqan dalkeeda kaalimaha kala duwan kaga jira arrimaha bulshada. mid ka mid ah maamulayaasha xawaaladaha lacagta la isugu diray ee Kenya ayaa xabsi la dhigay kadib markii lagu eedeeyay inuu lacag fara badan u soo diray Soomaaliya xilli xaalad adag oo dhanka diblomaasiyadda ay u dhaxayso Kenya iyo Soomaaliya. ciidamada booliiska ee ka hortaga argagixisada iyo xubno ka tirsan bangiga dhexe ee dalka Kenya ayaa ku duulay 10 ka mid ah xawaaladaha lacagaha la isugu diro ee Soomaalida ay ku leeyihiin Kenya, gaar ahaan xaafadda Eastleigh ee magaalada Nairobi. waxaana howlgalkooda ay ugu magac dareen hubinta lacagaha loo soo diro Soomaaliya, tiradooda iyo saxaanshahooda iyo meelaha loo wado. maamulaha la xiray ayaa lagu eedeeyay inuu diray lacag cadadkeeda iyo cidda loo wada aan la shaacin, balse ay u muuqatay mid carqalad ku ah hanaanka maaliyadeed ee bangiyada lacagaha Kenya. war uu daabacay wargeyska The Standard State ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa lagu sheegay in ciidamada booliiska ay baarayaan in lacagaha la diray xiriir la leeyihiin dambiyada sida musuqmaasuqa, been abuurka iyo in lagu taageerayo kooxaha argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalama si ay weeraro ugu qaadaan gudaha dalkaasi Kenya. khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ee salka ku haya arrimaha muranka badda ayaa saameyn ku yeeshay Soomaalida ganacsiga ku haysata dalka Kenya oo hadda lagu bilaabay in la cabsigeliyo, la qabto, xabsigana la dhigo iyadoo waxaan maxkamadda lama siinin. dhanka kalena dowladda Kenya ayaa Soomaaliya ku cadaadinaysa inay ka laabato muranka iyo dacwadda badda ay u gudbisay maxkamadda dambiyada adduunka ICJ ee ku taala magaalada Hague. qaar ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer ee Kenya ayaa maanta qoraya in Kenya ay doonayso in wadahadal iyo waliba si saaxiibtinimo ah lagu dhameeyo muranka badda ee kala dhexeeya Soomaaliya, isla markaana aan loo baahnayn in maxkamad la isla aado. waxayna Kenya ku adkeysanaysaa in qaybta badda ee muranka ka taagan yahay 100 kiiloomitir aanay gorgortan iyo wadahadalka galaynin. sidoo kale waxay mar kale xukuumadda Nairobi ay ku goodisay inay cunaqabateen ku soo rogayso Soomaaliya haddii ay sii wado muranka badda. dhanka kalena dowladda Soomaaliya ayaa ku adkeysanaysa inaysan dhankeeda gorgortan iyo tanaasul ka galaynin taaka ka mid ah dhulkeeda badda, isla markaana si kastoo ay timaadaba ay difaacanayso. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo Arbacadii ku kulmay magaalada Nairobi ayaa ku heshiiyay in dib loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, isla markaana danjirayaasha labada dowladood loo soo celiyo safaaradahooda si ay shaqadooda u sii wataan. balse madaxtooyada Soomaaliya ayaa ku adkeysatay inaan kulankaasi lagu soo hadal qaadin wax muranka badda ah ee labada dal u dhexeeyo. warbaahinta Ethiopia ayaa sheegtay in arrimaha laga wada hadlay ay ku jiraan xal u helista muranka badda, balse labada madaxweyne ay isku fahmi waayeen.